السلام عليكم أصحابتيدا سيتين مفيعنتين أرور هديكو تاي أرور وناكسن قلب هديكو تاي نقلب وحوال بيكو تاي وناكسن وعن انت مريكا ستغنو ما انتو حين كهدلنا سورة آية الكرسي البقرة أي كجرتا آيادنا ين ما انت كهدلنا mucjisaadaadu badan ayay leedahay aan la soo koobi karin ma ogtahay aayatul kursi waa aayad aad mucjisaad badan u wadata maasha Allah ku dadaal waxay wadataa sifaad badan oo aynan koobi karin waxay soo degtay kaligeed malag ayaa soo dejiyay kaligeed aayadaas waxay ka daawo tahay wax kasta sida ciriiriga walbahaarka dhibaatada cabsida walbahaarka sharka shaydaanka dhibaato kasta wax walba aad doonayso wax walba oo dhibaato ay ka daawo tahay waana xijaab nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa sheegay darajooyin badan ayuu ku sheegay suurada aayadan soo marka ku dadaal aayadan mucjisooyin badan ayay wadataa ma ogtahay cudur kasta ku haya ayada ayaa ka daawo ah aayatul kursi waxay xambaarsan tahay qaybo badan ama daawo badan ayay xambaarsan tahay aayatul kursi waxay leedahay barako badan ayadana shaydaanka kusoo dhawaan maayo ku celceli wax badan aroortii iyo galabtii xilliga ka gaadhid ama aad awoodid aad ugu celceli hadii aad aroortii oo dhan ka gaadhid hadii aad galabtii oo dhan ka gaadhid xilli walba ku celceli marnaba ha ka daalin noloshaada waa inay ka mid ahaataa oo qayb ka mid ay noloshaada noqotaa maadaama ay dawooyin badan ay leedahay oo iyadu ay dawo ay tahay soo noloshaada waa inay ka mid ahaataa aayadan aayatul kursi ayada ayaa daawo ah jinku kuu soo dhawaan maayo jimanka kuwa ugu waaweyn ee ugu awooda badan yacni qof kasta oo akhrista aayadan jinka ugu weyn iyo kuwa yar midna waxba kugu sameyn kari maayo waxay dhaheen aayadan qofka xambaarsan dhibaato uma geysan karno ayay dhaheen suurad aayadan waxaa ku sameysaa gurigaaga ku shid caruurtaada haddii ay kaa xanuunsadaan iyagana ku akhri guriga habeenkii aroortiiba ku shid haddii qof kaa xanuunsan yahay caruurta hadday kaa xanuunsan tahay adigu nafsiyan haddaa xanuunsan tahay cudur walba dawo ayay ka tahay sida cudurada dadka qaar dhakhtarada qaar ay daweyn kari waayeen ayada ayaa daawo ah haddii aad isticmaashid oo aad ku celcelisid iyada ayaa daawo ah laakiin inagu Soomaali ayay nahay badanka dhakhtar baan iskaga cararnaa ee quraanka kuma soo cararno marka aayadan yari waa aayad aad u mucjisaad badan oo aad u fadli badan oo nabiga xataa inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam uu inoo sheegay soo marka ku celceli oo ku dadaal oo caruurtaada oo gurigaaga oo adigu isku akhri oo daawo ayay ku tahay sida cudurada nafsiga ee qalbiga dadka kaga dhaca nooc walba oo cudura oo nafsiyana oo ku haya daawo ayay ka tahay ee ku celceli aayadan wax badan akhriso maalintii inta ka gaadhid soo marka ku dadaal ina xijaabkan ama aayadan xijaabka aad ku celcelisid maadaama Allah inuu soo dejiyay waa xijaab cudur walbana dawo ayay ka tahay sida tan u akhri waxayna ku jirtaa suuratul baqara
آخر waxaa tirahaa الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو علي العظيم سورة aayadan ku celceli mucjisaadkeedu aad bay u badan tahay xijaabkeeduna aad buu qurux badan yahay cudur walba oo ku haya hadduu mid nafsiyan yahay hadduu mid jidh yahay wuu daawo ayay ka tahay aad iyo aadna waa u fiican tahay xijaab weeye haddii aad rabtid inaad isdaweysid dhinac nafsiyana iyo dhinac maaliyeed iyo dhinac walba aad rabtid aayadan akhriso maalin walbana ku celceli insha Allah